Assalaamu calaykum buuro fuulka waxaan doonayaa halkan inaan kula wadaaga buuro fuulka ama buuro karowga dunida taa oo sanad walba dhacda gaar ahaan bilaha Maarso, Abriil iyo May. Haddaba maxaad kala socotaa arrinta buurta Mount Everest oo halka ugu sarreysa ee dhulka waxay jooga badda ka sarreysa 29,029 feet ama 8,840 mitir. buurta Mount Everest waxay ku taalaa waddanka Nepal oo ah waddan yar oo dhaca koonfurta Aasiya xuduudna la leh wadamada Shiinaha dhanka waqooyi iyo India dhanka koonfureed. Sanad kasta waxaa buurtan yimaada dad fara badan kana kala yimaada adduunka dacalladiisa si ay u koraan buurtan. Muddo intee leeg ayay qaadanaysaa in la koro buurta? Celcelis ahaan waxay qaadanaysaa 2 bilood koritaanka, waxaana qofka koraya ka bilaabayaa xagga hoose ee buurta, waxayna dadka halkaasi tagaan dhamaadka bisha Maarso. waxaa sii badanaya dadka isku dayaya inay tagaan meesha ugu sarreysa ee buurta kadib guushii ugu horeysay ee lagu gaaray meesha ugu sarreysa ee buurta sanadii 1953. qof walba waxa uu ku haminayaa inuu tago halka ugu sarreysa ee buurta, balse ma ahan arrin sahlan. 5,000 oo qofood oo koray buurta waxaa ku dhimatay 219 qof isku daygay doonayay inay ku gaaraan meesha ugu sarreysa ee buurta. sanadkan kaliya waxaa ku dhimatay 11 qof. waxaa jirta 2 wado oo muhiim ah marka doonaysa inaad korto buurtan. mid waa midda koonfureed midna waa midda waqooyi. farsamo ahaan waxaa fudud midda koonfureed oo inta badan iyada ayaa dadku isticmaalaan. safarka koritaanka waxa uu qaataa bilooyin isdiyaarin ah iyo isbuucyo helitaanka oxygen si aad u gaarto buurta. dadka waxaa waqti badan ka qaata ka gudbitaanka xeyndaabka dhimashada oo ah wixii ka sarreeya 26,000 oo feet, halkaas oo qofka uusan helin oxygen ku filan. sababta ugu weyn ay keentay inay dadka dhintaan ayaa lagu sheegay inay tahay inaysan dadku kaydsan energy ay ku soo noqdaan. buurtan ayaa ah buur baraf ah, balse bisha May ayay ugu roon tahay cimilada ayaana ah kuleyl in dadka safarka bilaabaan subaxdii. cimilada iyo dabeesha ayaa caqabada ugu weyn ee soo wajahda qulqulatooyinka doonaya inay gaaraan halka ugu sarreysa ee buurta. sanadkani waxaa jiray saxmad aad u sarreysa iyo ciriiri aad u fara badan dib markay buurta koreen dad aad u fara badan. waxaan rajeynayaa muuqaalkani wax badan ka faa'iiday oo ku saabsan buurta Mount Everest.